caradina hala iseeyo ururka caafimaadka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. magacaygu waa Cabdiraxmaan Aw Muuse waxaan ahay dhiinka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Boosaaso farceeda Garowe. waxaan rabaa insha Allah taala in aan bulshada la wadaago wacyigelin aad u anfacaysa oo aad muhiim u ah taasoo ah barnaamij hadda isku xigo insha Allah taala aan soo wadi doono ay kamid tahay nadaafadda iyo caafimaadka. bulshadeenu waxaan ognahay xanuunada ku dhaca badana waxay ka yimaadaan nadaafad darrada. sida daradeed marka waxaan rabnaa insha Allah taala mowduuc aad u muhiim ah oo aad iyo aad u anfici doona insha Allah taala kaasoo lagu lafagri doono caafimaadka iyo nadaafadda. waxa kale oo ku xigi doona insha Allah taala mid kale oo ah nafaqada iyo cuntooyinka kala duwan ee aan leenahay iyo caafimaadkeena. taasoo garan karno qof kasto inaga naga mid ah waxbuu cunaa laakiin badanaa waa caafimaadkiisa ma yaqaano. sida daradeed marka waxaan soo wadnaa insha Allah taala mawaadiic dadkeena bulshadeena guud ahaan anfacaysa kuwaas oo markaa ka hadlaya xageebuu ku jira caafimaadka wanaagsan marka laga hadlayo dhinaca cuntada. sidoo kale mowduucyada aan soo wadna waxa kamid ah haddii la idmo sida hooyada loo badbaadinayo hooyada uurka leh ama naaska nuujinaysa ama umulaysa sidii loo badbaadin lahaa inagoo insha Allah taala ku martiqaadi doona khabiiro midwifery ah hooyooyin ka dhalintooda iyo caafimaadkooda daryeelkooda runtii aqoon fiican ugu haysta. sidoo kale waxaanu sameyn doonaa insha Allah taala barnaamijyo ah traininno badan la xiriira tababarka waxyaalaha skillka gacanta gaar ahaan waxyaalaha fast aid oo kale iyo matalan oo kale in marka aan insha Allah taala iyana ay qayb ka noqdaan barnaamijkan guud ahaan barnaamijka caafimaadka guud oo dhan baan insha Allah taala ayaan isha ku hayn doonaa. sidoo kale waxa kamid ah qaababka loo wacyigeliyo bulshada waan bari doonaa insha Allah taala talaalada aan isticmaalo nooca yihiin waxa available ka inoo ah nooca aynu u baahannahay inay insha Allah taala aynu dadkeena barno taasna waa muhiim. sidoo kale waxa jira dad inaga mid oo nugul oo runtii aad u nugul oo ku nool xiriyaha qaxoontiyada iyo meelaha dadka soo barkacay ku nool yihiin. dadkaasi waxay la dhacayaan xanuun laga hortay karayo. waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan u sameeyno wacyigelin ballaaran kuwaas oo markaa aan runtii dareensanahay inay tahay meesha ugu habboon ee laga bilaabi karayo wacyigelinta insha Allah taala. waxa kale oo kamid barnaamijkan aan soo wadi doono wax loo yaqaan health seek behavior oo ah dadkeenu qofku markii uu xanuunsado oo soo dhaco markaas uu tagaa isbitaalada. waxaan rabnaa marka in dhaqanka noocaas aynu ka guurno oo u guurno qofku inta uu caafimaad qabo inuu tago xarumaha caafimaadka si marka uu ogaado xaaladiisa. marka barnaamijkaas oo aan wacyigelin runtii aad u ballaaran loona baahan yahay in maaragtay bulshada la baro iyaguna waxa kamid tahay waxyaalaha aan soo wadno oo rabnay bulshada aan la wadaagno insha Allah taala. waxa kale oo kamid ah dadku qof kastaaba wuxuu u baahan yahay inuu barto safe life si nafta loo badbaadiyo. qof kasto inaga naga mid ah oo shacab ah wuxuu u baahan yahay inuu yaqaano sida nafta loo badbaadiyo. adoo aan dhakhtar ahayn waxaad noqon kartaa safe lifer qof nolosha badbaadiya ayaad noqon kartaa. sida daradeed marka waxaan u baahannahay insha Allah dhammaan mowduucyadaas waxay noqon doonaan mawaadiic dadku aad iyo aad runtii u anfacda insha Allah taala. waxa ugu dambeeya oo ku xigi doona insha Allah taala cilmi baaris qaababka cilmi baarista loo sameeyo qaababka researchka loo sameeyo. dadkeena waxay bartaan aqoonta waa la helayaa ma sha Allah waa la korayaa waa la tarmayaa maskaxaan iyo caqli ahaan iyo cilmi ahaan waa loo siyaadayaa laakiin problemkeenu meesha uu ka bilaabmay iyo sidii xalka loogu raadin lahaa waxay u baahan tahay in aad loo fahansan yahay. waxa marka barnaamijka insha Allah taala gaar ahaan u noqon doona faa'iido ardayda jaamacadaha dhigta ama ka baxay ama dadka shaqeeya kuwaas oo marka ay noqon doonto inay noqdaan waxay ka faa'iidaan. cilmi baaristaasi waxay noqon doontaa insha Allah taala mid si deep leh uga la fugurno hadduu Ilaahay yiraahdo qaabka researchka loo sameeyay iyo noocyada researchka uu leeyahay iyo baahiyaha sida loogu dabaqo iyo sida hadhow loo recommend gareeyo sida article-kaaga ama paper-kaaga hadhow u soo qeyn lahayd. qodobadaas iyo kuwa kale way soo socdaan insha Allah taala. waxaan rajaynayaa in si toos ah idinku socon doonaan shabakada Wadan Media. dhamaantood assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. marka hore waxaan mahad leh Allah subhanahu wa ta'ala noo suurtageliyay in barnaamijkan daafurno. inta kadib waxaan rabaa barnaamijka uu doctorku sheegay haddii Allah uu doonayno wuxuu maalin kasta oo khamiis ka bixi doonaa
warbaahinta wararka ee wadani media farxad bay noo tahay barnaamijkan inaan bulshada u soo gudbino isaga iyo barnaamijyada kaleba hadda warbaahinta waxaa si toos uga baxa barnaamijyo kale ay ka mid yihiin barnaamijka la hadal bulshadaada oo inta badan culimadu ay ku soo bandhigto xaqiiqdii wacyigelin bulshada waxaan soo wadnaa barnaamijyo kale oo bulshada xaqiiqdii lagu wacyigelinayo haday noqoto dhanka caafimaad waxbarasho sidoo kale waxaan soo wadnaa barnaamijyo kale oo iyagu laftigoodu xiisahooda gaarka leh ma rabo inaan ka hor dhaco warbaahinta wararka wadani media oo warbaahinada kale waxyaabaha ay uga duwan tahay wax ka mid ah inay ka shaqayso barnaamijyada arrimaha bulshada oo xoogga saaro xaqiiqdii waa mas-uuliyad ay si qaaday bahda warbaahinta wararka wadani media xaqiiqdii aniga iyo asxaabta kale oo tiimka warbaahinta ka shaqeeyana waa mid aan uga mahad celinayno in ay garteen inay bulshadooda u shaqeeyaan mas-uuliyaddaas bulshadana waxaan ugu baaqaynaa in warbaahintu iyo dhallinyaradaasba mas-uuliyadda ay saareen inaa ninkuna la galataan barnaamijkana aada kala qayb qaadataan barnaamijkan asbuuc kasta wuxuu ka bixi doonaa maalinta khamiista ah marka waxaan rajeynayaa inaan loo dami la-aan barnaamijkana si dhow iyo si gaaraba loogu xirnaado waa barnaamij bulshada xaqiiqdii anfac u leh waa barnaamij ka tarjumaya xaqiiqdii baahi jidhay xaqiiqdii aan rajeynayno in isku doono inaan daboolno bulshadana waxaa leenahay barnaamijkaas laga faa'iidaysto waxaan aada ugu mahad celinaynaa xaqiiqdii digtoorada xaqiiqdii barnaamijkan mas-uuliyaddooda isu xilsaaray oo ka hadli doona bulshadana usoo bandhigi doona xaqiiqdii cilmiga caqliga garashada iyo fahamka ay dadka dheeryihiin aadaan iga mahad celinaynaa haddaa ka nahay warbaahin ahaan bulshadana waxaan rajeynaynaa markale waxaan ku celinayaa inay barnaamijyadaas iyo barnaamijyada kale oo warbaahinta ka baxaya iyo kuwa aan hadda soo wadnaba inay u daymo la-aan oo markasta ay bartaan ku xirnaadaan aada u mahadsantihiin